asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaarteena kusoo dhawaada barnaamijka latest hadahan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka waxaan diradda aan ku saari doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta haddii aad naga cusubtahay fadlan subscribe noo saar barnaamijku waxaa taabagelinaya shirkadda iphonada keenta ee zag smartphones nairobi kenya si aad la socoteen nadiga kubadda cagta manchester city waxaa laga hadlayay iyo weliba sida suurtagalka ay ku dhaafi karaan kulan ka mid a kuwa ugu adag ee brighton xalay torodha mucaaradkii way wada fariisteen waxay lahaayeen kooxda kubadda cagta brighton baa joojin doonta city waa lagu kala baxayaa laakiin waxaa la arkay qaabkii duufaanta amaba sida caadada ahayd dhamaadka xiliyaareedka city oon waxba laga qaban karin city oo badinaysa city oo dhalinaysa city oo markaa xakameynaysa kooxa ka horjeeda khatar iska daaya kooxda kale oo inta la qabto la xirxiro meel la fariisanayo kadibna danta laga raacanayo city sidaas baan ku naqaanaa kulamada ugu dambeeya horyaalka markaasi laakiin markaad fiirisid nadiga kubadda cagta liverpool rajadeeda meesha bay kaga baxday waxaan dhihi karaynaa Pep Guardiola xalaytoola cajiib buu ahaa wiilashiisu go-aamiyaal bay ahaayeen wiilashiisu cajiib bay ahaayeen wiilashiisu qarka bay u saarayeen horyaalka Tottenham baan ku fiirin doonaa haddana Tottenham haddii wax ka qaban weydo almost waxaan dhihi doonaa balyo horyaal kale iyo weliba city oo mar kale lagu boqorayo inkastoo horyaalkan dhadhankiisa uu isagu ahay ama Arsenal inay qaado ama xitaa Liverpool marka laga si horyaalka dhadhan u yeesho marka laakiin de waxay u muuqan karaysaa city sababo ku aadan awoodeeda shaqadan waxba laga qaban karin mustawaheeda macallin Pep Guardiola diyaarsanaanteedu xidigaha keedka ay u haystaan isbedel xal fiiri la jiray Maduko wala xitaa markaasi lama ciyaarsiinin marka ninkii cajiibka ahaa Grealish Riyad Mahrez waa la diray wada ogeedeen boo ka hor marka xiliyaareedka iyadoo sidaas ay tahay waxaad ogeedeen Palmer in laga iibiyay Chelsea nin ka waran labada garab oo Mahrez iyo isku daraya hal mar haddana horyaalka buu qaadaya sidaas buu isagu u adkaanaya cidna kama waxba kama qaban karto taas ayaa kutusinaysa awoodda marka aan waxba laga qaban karin ee cajiibka marka burburinaysa cid kasto isku kalsoon runtii waxaan dhihi karayaa awood cajiiba shalaytor waxaan arkaya kooxda kubadda cagta Liverpool taageerayaashooda in badan wax ka sheegaya odagii ahaa Jurgen Klopp yani ma garan karayo waxa keenay in reer Liverpool intooda badan waxaan arkay dhowr 5 ilaa 6 qofood baan la fariistay shalaytoole cid kasta waxay ku leedahay kanana wareeriyay Klopp baa markaasi fashilka sabab u ahaa Klopp baa saas Klopp qaladaad uu galaya waa macallin laakiin Liverpool yaa waxaan ka dhigay waxay tahay waa sax maamulku waa bixin laakiin ogsoono xidigaha loo u haystay Klopp horyaalkii uu isagu 2019 uu ku qaaday ma xidigaha city loo keenay ma inta United ay suuqa gelisay iyo Chelsea ayaa ka badan baa lagu level suuq intay gelisay war Salah aan arkaysan Viola baa laga keenay Mane Southampton baa laga keenay Firmino Jarmalka baa laga keenay يعني waxba isu kabkabay markaas buu wax ka soo saaray jeish aan la markaa la joojin karin jeishun la yuqhar carabtu waxay tiraahdo yani aan garanaynin jilbaha sida loogu aasay dagaalamayo ilaa iyo nafta ay ka baxayso marka macalinka inaad markaa ka shakisaan oo aad tirahdaan Liverpool baa macalinkeeda faashila Klopp waxba ma noo qaban isaga ma aragtay sababay in kooxda aanu fashilano taban Klopp wuxuu haystay iyo Pep wuxuu haystay isku mid baayn wariyaa u ciyaaraya city qadkeeda dhaxfiiri Bernardo Silva Kevin De Bruyne Phil Foden markaad fiirisid mustawaha uu isagu Rodri eeg halkan burburiyaha kooxda waxa waaye nin la yiraahdo Wanda Tara ma la yiraahdo Wanda Tara hadda intuu ka qaadanaya isaga iyo Rodri ma isku barbardhigi kartaa ma barbardhigi kartaa wala rubciisa ta ma gaaray okay Magalhaes macquul waa laacib quality sare leh Szoboszlai مستويس ولي ما أرك كرنا نجد ما كم مرة مكرنا ويرك مركز فيليس هالم بالو تنونس بو تاني كان يعني على الأقل حشودة مركز ليدي كلوبا وحبا يعني على إنه حقا هاد حصوصتان وحو يدين قبتي مركز دوريال بودين قاضي جمينسيك بودين قاضي كوب كلا دون بودين قاضي لأنتي وحندي كريا ماشي جوك قدام أنت جوكتان من جوكتين marka asbaab kamid asbaabaha guusha aad gaarteen sanadii ugu dambeeyay wuu ahaa marka Klopp markaasi geesta kale nadiga kubadda cagta marka Liverpool waxay ka baxday u tartamida ninka lagu magacaabo Robin Amorim laba naadi ba u tartamaysay waa nadiga West Ham iyo nadiga Liverpool waa diiday markaas sababtuna waxa lagu sheegay inuu dalbaday mushahar 10 milyan waxay yiraahdeen oo maadsan tahay sheet baa hadda Klopp isaga dirin anaga ma wax kale kuma galnay nuu kala wad هذا واحد دونين أرن سولت حلو هاللي ويراني ليفل بان ربا أدبنو جعلها لبنا ديني قوان قاران أيان سوقي وحنا هايد cadaadis uu isagu doonayay inuu saaro
nadiga kubadda cagta ee markaasi Vinod si iyadu ay u ogolaadaan ama ay u fududeeyaan markaas Liverpool lacag wada haddii la yidhahdo ninkan waa fasaxaysaa shaqadeeda ma waxaas ma qorto iyadu markaas Arne Slot ragga ku taliyay waxa uu ahaa Major Edwards isaga hogaaminaya mashruucan xidig isagu oo ogeyna lama keeni karo macallin isagu ogeyna iskaba sii daa markaasi haddii taa ay dhacdana waxaad arki doontaa isagoo shir jiraa'id qabanayo kule aad wanaagsantihiin waqti wanaagsan baan soo wada qaadanay intaa ayaanu idinkaga egnahay ma rabno waqti kale inaan ku lumino Liverpool waqti xaadirkan waxay doonaysaa markaasi xidigii ka yaabsaday Atlanta ka tirsanaa wiilka cajiibka ee la yiraahdo canugu oo balaaye ka dhacday baa jirayo canugu la yiraahdo Cobb Minoris Atlanta buu ka tirsan yahay xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamay Liverpool inay u tartami doonaan oo ay rabaan ninkan inay soo qaataan sida kelmadu macna u leedahay markaas marka waan arki doonaa ima Pochettino warkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaalkiisu uu qatar ku jiro Pochettino markaad fiirisid yani wax horumar kooxda lagama hayo marka hore waxaan ogaan jiray anagu koob inuu idin qaadin waaba ogeyni laakiin waxaan sugaynay ugu yaraan horumar buu sameeynaya xidiga dagaalamaya oo meel dheer gaari kara oo mustawa wanaagsan soo bandhigi kara oo wacdaro dhigi kara ayaanu ka filanaynay inuu la iman karo laakiin markaad eegtid mustawa hadda isagu soo bandhigayo ma aha mid wanaagsan mid aan wanaagsanayn oo dhibaato ah oo kooxdu wax badan oo ay lahayd aan siinaynin markaasi weerarka waad arkaysaa wax hadda horumar ma jiraan caqabad bay la kulmayaan dhibaatooyin baa jira markaasi marka waxaan dhigi karayaa anigu naadigan waxaan dhigi karaa waa shubaysaa Pochettino waa u qalmaa in la ceeriyo sababtoo ah wuxuu qabtay ayaaba iska yarba kooxda markaad fiirisid mustawa liita uma qalma inuu sii joogo markaasi inkastoo mashruuca Chelsea uu ahaa mashruuc sanado dheer sanado kaliya sanad isagu la siiyo halka haddii laga fiiriyo waxaa sanad kale ha loogu daro laakiin ma muuqato wax ifafaalo wanaagsan lagama arkayo geesta kale naadiga kubadda cagta Barcelona waxay markaasi u dagaalamaysaa saddex xidig wararku waxay sheegayaan wiilka lagu magacaabo Bruno Gimenez iyagu ay rabaan inay soo qaataan sidoo kale wararku waxay sheegayaan wiilka lagu magacaabo Bernardo Silva iyo Martin Zubimendi xogu waxay leeyihiin saddexdaas xidig bay rabaan inay u dagaalamaan waqti ugu dambeysay waxay sheegaysaa 100 milyan ninkan in markaasi la rabo in markaa lagu qanciyo la rabo in markaas safkooda ay geeyaan la rabo in markaasi iyadu ay bushgarayaan marka Bruno Gimenez heshiiskiisu waxa leeyahay 100 milyan baa lagu qaadan karayaa waa isbuuca ugu dambeeyay May ilaa iyo dhamaadka bisha ama markaasi June markay gabagaba tahay sidoo kale Bernardo Silva iyo Martin Odegaard inta buu daneynaya Kimmich baa ku jira macnaha waxay tahay Bruno Gimenez lama soo qaadi doono haddii la soo qaado Martin Zubimendi ama Kimmich midkood u yimaado ma iman doono macnaha Bernardo waa xidigan la taaban karin oo isagu mashruuca kamid ah Isaac waa la tilmaamaya idoona marka waan arki doonaa ma wada qaadan kara xidigaas laakiin laba ama saddex kamid ah ama laba kamid ah ayaa laga yaabaa inuu soo helo